السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أقون دون channel. muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa farsamooyin muhiim ah oo ku saabsan WhatsApp-ka. balse waxaa xusid mudan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqanayso channelkan, fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelka si aad uga mid noqoto bahda ku xiran channelkan. haddii aad ka mid tahay dadka ku xiran channelkan, fadlan muuqaalkan like saar oo share dheh si aad u gaarsiiso asxaab badan. daawasho wacan. farsamada koowaad ee aan kugu tusi doono muuqaalkan waxay tahay haddii aad rabto in chatska sida sawirada, muuqaalada, codadka iyo waxyaabaha kale la midka ah ee lagu soo diray adna aad u dirto qof kale inay tirtirmaan ama aad iska dhileedo, WhatsApp-ka wuxuu leeyahay feature kuu suuragelinayo inaad si automatic ah isaga dhileedo. aynu isla aragno. ugu horeyn waxaad soo kicisaa WhatsApp-ka, kadibna waxaad tagtaa contactiga ama qofka aad rabto inaad fariimeyso 7 biri gudahood isaga tirtirto si automatic ah. waxaad ku dhufataa meesha magaca uu ku qoran yahay, kadibna waxaad imaataa disappearing messages oo ah fariimaha lagu soo diray ee kuwa aad dirtayba inay baaba'aan oo ay tirtirmaan. markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doonta qoraalkan yar, waana muhiim iska akhri. qoraalka markaa akhriso waxaad dhihi doontaa intaa kadib continue markaad dhahdo waxaad ka dooran doontaa on. farsamada labaad ee aan kugu tusi doono muuqaalkan waxay tahay marar badan waxaa dhacdo inaad damacdo inaad cod duubto, kadibna codkii adigoo duubaya inay wax kaa soo dhexgalaan ama si fiican aad u duubin. waxaadna aad u jeceshahay inaad codkaa dhagaysato inta aadan dirin, balse WhatsApp-ka kuuma suuragelinaa inaad arrintaas samayso. waxaan kugu tusi doonaa farsamada ugu fudud ee aad ku samayn karto cod inaad duubto, dib u dhagaysato, kadibna dirto. aynu isla aragno. ugu horeyn soo kici WhatsApp-ka, kadibna waxaad tagtaa chatka ama contactiga aad rabto inaad wax u dirto, kadibna waxaad tagtaa qofka aad rabto inaad wax u duubto. waxaad qabsataa meega, kadibna waxaad duubtaa codka. adigoo codka duubaya waxaad samaysaa meega kor u jid si aad u loo gareyso. waxaad ku dhufataa calaamadda dhexda ah ama midda loo yaqaan minimize. mar labaad dib ugu soo noqo WhatsApp-ka, dhageyso codka aad duubtay, kadibna u dir adigoo qanacsan. triga saddexaad ee aan kugu tusi doono muuqaalkan waa mid simple ah. waxaa mararka qaar dhacdo in chatska qaar aad jeceshahay inaad saarto background ama wallpaper ka duwan kuwa kale. waxaad samaysaa soo kici WhatsApp-ka, kadibna waxaad ku dhufataa contactiga ama qofka aad rabto inaad beddesho wallpaperkiisa ama background-ka dambe. waxaad ku dhufataa 3 calaamadood, kadibna waxaad ku dhufataa wallpaper. intaa markaa ku dhufato waxaad ku sii dhufataa change markaa ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona 4 option. labada ugu horeysa waa bright iyo dark oo ah labada theme ee uu isticmaalo WhatsApp-ka, midka bright-ka ah ee cad iyo midka dark mode-ka ah. aniga waxaan isticmaalaa dark mode-ka, sidaa darteed waxaan ku dhufanayaa dark, kadibna waxaan ka dooranayaa sawiradan midka aan rabo. triga ugu dambeeya ee aan kugu tusi doono muuqaalkan waxaa loo yaqaanaa advanced oo ah inaad si heer sare ah ama horumarsan wax u baarto. soo kici WhatsApp-ka, kadibna waxaad ku dhufataa icon-ka yar ee siege-ka ah. markaa ku dhufato waxaad raadisaa qofka aad rabto inaad wax ka baarto, magaciisa halkaa ku qor, kadibna waxaa kuu soo bixi doona optionskan. waxaad wax ka baari kartaa linkiyada qofka uu kuu soo diray, sawirada uu kuu soo diray, muuqaalada iyo codadka dhammaantood si advance ah oo horumarsan. tusaale ahaan waxaan ku dhufanaynaa photoska, kadibna waxaan aragnaa in dhammaan waxyaabihii uu ii soo diray qofkan ay xaggan igaga soo baxayaan si fudud. waan filayaa inaad muuqaalkan ka hesheen. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiisa badan, waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.